sagaal oo sanam oo kale laga dhigto sidaasoo kale wax u dhacayeen qaababkaasay wixii markay u dhaceen labada qabiil aan taabto waxa weeyaan qabiilka ugu fac weyn Soomaalida oo weliba aan dhihi karo aadanaha ugu fac weyn waa qabiilka la dhaho Sede marka Sede buu ku noqday waxa weeyaan adilaadka waxaan ka keenayaa Tawraada Injiisha iyo Quraanka oo markaa meel si taraya iyo kutub fara badan oo kaleeto oo dad qoreen oo magaciisa مثلا Sede waxa marka uu Bible-ka iyo ku jiro Tawraad iyo Injiil iyo ku jiro dad waxay ugu dhawaaqaan El Shaddai dadna waxay ugu dhawaaqaan Sede marka El Shaddai waa sidii aan sheegayay shacdi iyo sacdi baa la isku dhex qaldaya Al Sede weeyaan ama El waxa weeyaa waa Allah laga wadaa ama Elohim baa laga wadaa Sedena waa Sede hadee marka waxaa la isku khilaafaa magacan Sede oo marka dadkii waxay dhahayaan anagu sidaan nahay dad waxaan nahay rabbaaniyiin ilaahay u go'ay oo kaleeto bay ka dhigan tahay sidahaas waxa weeyaan anaga soo ma sheegano asmaa'ul husna 99 nooma ahan waxaa jirta qoladan oo macnaha Christian iyo Yahuud aan dhahno ama Tawraad iyo Injiil markaan dhahno waxaa jirta 7 magac oo ay dhahaan 7daas magac buu Ilaahay leeyahay 7daas magac mid ka mid ah weeyaan marka midkaan oo maartay la yiraahdo Sede la yiraahdo 7daas magac oo iyagu waxba waqti uma hayna inaan ku fasirno mid walba waxyaalo kula soo Ilaahay sifaadkiisa sheegaya laakiin Sede baa marka waxa laga wado waa wax horta la caabudi jiray kuwaas kaas aniga markaan taxliiliyay waxaan soo saaray inuu yahay magaca asmaada Ilaahay mid kamid ah oo la dhaho as-samad weeyaan marka muuminiinka ayay ka saareen badan waayo luqadda dadkii ku adkaanaysa asmaada intay ku dhawaaqaan iska dheh marka al-Sede saasay iskaga dhahaan laakiin as-samad weeyaan waa midka loo qasdo loo wada baahan yahay wax kasta looga baahan yahay isaguna aan midna u baahnayn wax walbana taraa ayagu markaa Sede waxay ku fasiraan ilaaha buuraha ilaaha onkadka ama gugaca ilaaha maxay tahay samooyinka ilaaha disasterka qaraxyada iyo markay dhacaan iyo abaaraha iyo waxaas markay dhacaan ilaaha waxyaalahaas oo dhan bay dhahaan wixii waxay isku keenaysaa al-samad bay isku keenaysaa meelaha ku fasiraan oo dhan waa wada runtiin inta la yiraahdo in Sede ay isla noqoto halkaas baa Sedahaas waxa uu yahay marka waa magac weyn oo ilaa hadeer reer Sede meesha ay ugu badan yihiin waa Ethiopia oo ku yaalo webi la dhaho webi Maraxaan marka Sede iyo Maraxaan baa taan ku soo hoos galay Sedaa sii jiray oo wax la caabudi jiray Maraxaankiina waa soo hoos galay marka hadeer oo la joogo midalan marka la joogo Oromada degan dhulka Hawaashe iyo Shashamane iyo Kabrmengeste hoos soo dhaadhac dhulkaas oo dhan webiga halka ku yaala webi Maraxaan la dhaho waxay jira marka meeshaas marka ay roob doonta sameynayaan waxay dhahan aabaheen sidoo oo bixi aabaheen sidoo na waraabi sidaas ay ku ducaystaan kulley qaar badan af Oromo ama af Ethiopian yaqaan waa ku jiraan af Amhar saasa la dhahaa kadib haddana maxaa isku xiran qabiiladaas Oromada ah waxaa la dhahaa beelo Sede oo kuwii Sede saas isku intaas isla ahaayeen waa la isla yaqaanaa hoos u soo dhaadhac haddana marka ayaga la soo dhaafo waxaa ku xiga qabiilka la dhaho Urago dowladdiisa aad barkay intii jirtay Muqdisho imaan jireen Haile Mariam oo madaxweynaha marka Ethiopia uu soo cayriyay ayaga iyo Maraxaanka meesha deganaa isagoo Maraxaan aan ku eedeynaya waa Urago qabiilka ku dhegana waa Raaxasan oo Maraxaana oo kulasi dhegana waa Hawraarsame iyo Raaxasan iyo Urago iyo qabiiladaas kale isku dhegan waa beelo Maraxaan baa la isku wada dhahaa oo beelo Sede oo saa isugu dhegan sidaas darteed Sedaha ayaa wuxuu yahay qabiilka ugu weyn oo ah wax la caabudi jiray loogu magac daray hoosna magac Maraxaan ka sii noqday
yaa ku xiga marka magacaas isaguna intaas ku soo xiga ku xiga marka magaca sade oo kaleeto aniga macnaha haddaan tusaale ku caddeeyo inaan iska dhaha keliya ma fiicna inaan daliil ku sheegaa fiican waxaa jira qoraayaalka ugu caansan dhinaca yahuudda iyo kiristaanka iyo ay tixgeliyaan waxaa ka mid ah mid la dhaho Bailey qoraa la dhaho waxa uu qoray buuggiisa la yidhaahdaa Israa'iliyaat al-Shaddai an Amorite Belsede waa ciwaankiisa la dhahaa wuxuu yidhi Israa'iiliyiinta oo al-Shaddai ahaa iyo Amorite kuwa la dhaho oo Belsede ahaa sadii marka waxaa loogu dhaqaa Shaddai marna Belsede beel Soomaali caadi ah beel oo hadda dhageysi ah weeyaan ama accent waxa la dhahaa Faransiiska kale xarijinta saana ku dhigan tahay Belsede marka kaas intaas uu qoray buug dhan weeyaan waxa la qoray 1968 buug kaleeto oo la qoray 1969kii waxaa qoray Jean Ouimet la dhaho oo magaca Ouimet oo Faransiis u eg yahay waxa uu qoray More on El-Shaddai and Belsede wax kale oo horle oo aan ka sheegayo El-Shaddai iyo Belsede ma isku mid ba ma kala laba uu ka faalaynayo intaasoo dhan marka uu sheego waxaa meesha marka ka muuqata beel waa af Soomaali sede waa iska warcad qabiilada dega maxay tahay Ethiopia maxaa la dhahaa beelo sede oo jamac ah beelo kala go'an oo sede ah weeyaan intaas waxay marka waxaan ka hadlaynaa intaan masiixiyadda ka hor tawraad ka hor waqtiga Ibraahim waxaa jira elsade laftigiisa baa waxaa la dhahaa ilaahay jiray Ibraahim ka hor ama waqtigii Ibraahim joogay ayaa la dhahaa Jacob ayaa aayado ka mid ah ku jira tawraadda iyo kuwa injiilka ku jira baa wuxuu dhahayaa I am Jacob I appeared to El-Shaddai macnaha waxa aan u muuqday aan arkay markaa El-Shaddai oo sade ah oo waxay tahay meeshaas waxay ku qoran tahay kitaabka la dhaho qaybta la dhaho Exodus 6:3 ayay ku qoran tahay wuxuu leeyahay I am the Lord macnaha ilaahay baa ila hadlaya oo camal weeyaan I am the Lord I appeared to Abraham Isaac Jacob and El-Shaddai aniga waxaan ahay markaa Lord Rabbi baan ahay waxaan u muuqday oo u soo banbixay Ibrahim iyo Isxaaq iyo maxaa la dhahaa iyo Yacquub iyo El-Shaddai El-Sade intaba Exodus 6:3 mid kaleeto waxa uu leeyahay Eloah baa macnaha ay ka wadaan ilaahs macnaha mid kale oo aayad kale camal ah ayaa iyana sidaas oo kale sheegaysa laakiin appeared taas marka la dhaho ilaahay baa مثلا ama Genesis aan ka soo qabto Genesis ayaa waxa ku jira and Jacob said to Joseph Yacquub baa wuxuu ku yiri Yusuf El-Shaddai appeared to me El-Shaddai oo marka lana beel sida la dhahayay weeyaan appeared to me sida baa la dhahayay beel markay noqotana beel sida uu iisoo banbaxay uu leeyahay waxa uu ii sheegay I'm in the loss markaan anoo habowsan buu iisoo sheegay oo ku habowsan dhulka Canaan markaasuu iblis gareeyay maxay la mid tahay muuqashadaas waa sida waxyigu ku yimaado oo ilaahay quraankiisa noogu sheegay oo Allah uu leeyahay وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليهم رسولا فيوحي بإذنه إلهي وها ننقف إن الله إن الله كل هذا مويانه طريقة وحي أما إنه حجاب قداش اسكالس الله أما إنه رسول صدره مركا الله الذي إنه أصو استوصي إلهي يعلق أساسه كلا كم قنيسة marka way dheertahay qisadan hadda wax maanta meeshan lagu koobi karo male laakiin hal qabiil ku dar maadaama daaroodka marka aan ka soo qabsaday oo qabiilka ugu horeeyay uu yahay qabiil kaleeto asagana ugu horeeyo asagana wax la caabudi jiray ah oo hawiyaha aan soo qabsanaya waa qabiilka la dhaho Abgaal
abgaal isagana waxa uu igu leeyahay abgaal ma abgaal ha marka abgaal waxa weeyaan isaga qudhiisu maalinka ugu horeysa aan ku baraarugayo sidaan ugu baraarugay waxay ahayd arday baan wax u dhigayay marka gabar ka mid ah ayaan magaceedii meesha abgaal baa ku dhigan markaasaan isir dhaansi kale ugu dhawaaqaysaa markaa magacaaga maxaa loogu dhawaaqayaa dhise loogu dhawaaqaa say tiri abgaal abgaal caadiya markaas waan etoobiyaan amxaaraa markaasaan iri magacaan ma la baxdaan abgaal haa waa magacyada muqadaska ah oo ilaahay hore magacyadiisa weeyaan oo magac barakaysan weeye way igu tiri bal halkaasaa qalaf la iga jiray waan baaray arrintii baaritaankii markaa waxaa ii soo baxday qoraallo badan oo taas sheegaya oo ahaa inuu ahaa ilaah yarow la caabudi jiray camal oo waxaa qaarkood waxay dhahayaan waxa uu ahaa ilaah oo beri islaamka ka hor baa la caabudi jiray waxaana uu ku dhex jiri jiray boqortooyo la oran jiray baalyeri ximaay uu ku dhex jiray baalyeri ximaayna waa marixaanka qayb ka mid ah ama farac dhexda ku jira weeyaan ayuu ka mid ahaa markaas waxaa la oran jiray ilaahaas waa ilaaha badawiyiinta reer baadiyaha iyo badawiyiinta uu ahaa oo markaas muxuu ilaah ku ahaa baa laleeyahay waxa uu ku ahaa geela iyo ariraacsada xoola dhaqatada iyo geelka ganacsadayaalka camel traders la dhaho kuwaas buu u ahaa ilaahay sidaasuu marka ku yahay ilaahaas ku ahaa haddaba maxaan haynaa sida oo ah ilaah uun la caabudi jiray oo magaca ilaahay oo la haleeyey oo sanam laga dhigay ah iyo abgaal oo asagana magaca ilaahay qayb ka mid oo sanam laga dhigay ah sidaa darteed kulligood waxay ka horreeyeen diimaha ibraahimba ka hor weeyaan waa xilliga diimaha samaawiga ka hor ama intiisi diimaha imaanin weeye xilligaasi taasi ma la dhihi karaa professoro ma jirto marna dhulka soomaalida muu ahayn meel ilaahay mar walba wuxuu ahaa meel ilaahay sida la rabo wax loo caabudayo ilaahay lagu caabudi jiray weligeed dhulka soomaaliya taariikhda ugu weyn oo dhulka soomaaliya leeyahay oo aan cidino inkarinin waxay tahay inuu yahay dhulka ilaahiyada meel weligeed ilaahay lagu caabudayo magacyada ay ka mid tahay sharma arke oo ah kii aan sharta arkeenin baal oo ah kii ama waxaa la yidhahda baal oo kaleeto waa jiro sanab la yidhahdo waxaa jiro eebe oo kale u yaqaanin oo ahaa caaduwa oo kale ka mid ah ama cawaaq wax la dhaho kale oo qabiilada iyo ku arkayso dhulka oo kale marka mar waliba waxay lahaayeen wadaad oo kaleetaa ka mid ahaa oo maanta loo yaqaano wadaad oo kii ay wadka u aadayeen ahaa marka mar ayaan ka hadli doonaa magacyadaas iyo sanamyada iyo waxay ahaayeen iyo sida ahaayeen laakiin waxaan rabaa in macnaha hadda sidaad noo sheegtay labada sanab oo ahaa sanabkii sada iyo sanabkii abgaal oo isla markaasi ahaa maanta dad nool oo jiro oo ku abtirsado oo weli sidii u jiro qabiilo soomaaliyeed oo muslimiin ah oo dhammaantooda aan wada naqaano laakiin waxay jireen xilliga diimaha ka hor magacyadan iyo sidaas iyo ummadda ay jiritaankooda u jireen waxaadna sheegtay haddaayito magacyadan kaleeto ay ka midka yihiin hadda la isticmaalo ay dadka isku yaqaanaan inay yihiin wax loo fidiyo ummadda oo ay ku midoobeen oo kale marka maasha allah ku soco insha allah marka waxa weeyaan taas haddii aan hadalkaagii ku noqdo ah yaa markaas dhulku ku soo horeeyey kuwii ugu facweynaa marka labadaas qabiil waa aniga sheegay oo marka exla-aana labadii hawiyii iyo daaroodka hadda garoonka ayagaa haystaan ayagaa garoonka isku taga ku cayaarayaan marar hore oo ka horreysay qabiilo kalaa garoonka isku haystay oo banooniga wataan laakiin hadda kuwaana banooniga wataa marka labadoodii min hal midaan kasoo qabtay laakiin haddii marka su-aashii aan ka dhigno labadooda yaa ku soo horeeyey dalka oo muwaadin ah arrintaasaa marka ku jirtay su-aashaadii hore arrinta iyadaa waxaan uga jawaabayaa su-aalahaas dadweynahan rabaa inay iyagu isaga jawaabaan waxaan leeyahay horta see lagu kala gartaa qofka dhulka ku soo horeeyey iyo qofka dhulka boob ahaan ugu yimid waa su-aal meesha mudan oo waxaa la dhahaa dadka settlers
kuwa settlers ah dhulka soo degay xoog ku soo degay ama occupiers xoog ku qabsadeen dhulka iyo kuwa maaragtay aboriginal oo la dhaho indigenous people dadkii dhulka asal u lahaa labadaas ayaa maxay too in la kala ogaado ay tahay labadaas see lagu kala gartaa calaamadaha lagu kala garto waa calaamado iska cadcad waxay tahay dadka oo maalan soo galootiga amase qabsadayaasha laba nooc oo lagu yimaadaa migration dad soo qaxayo iska yimid iyo dad xoog ku yimid labadoodaba marka mid walba ujeeduu leeyahay mid walbana calaamaduu leeyahay mid walbana dhaqan baa ka soo baxa oo uu ku keenayo in uu dhulka uusan lahayn awgeed baa dhaqan kale ku abuurmaya midna in uu dhulka leeyahay awgiis baa dhaqan kale ku abuurmaya oo maxay tahay waxa ay tahay marka ugu horeysa waxaa jirta qofkan soo galootiga oo meesha soo qabsaday waxa uu mar walba leeyahay ujeedo dama dan waxaasoo dhan buu leeyahay uu meesha ku imaanayo